السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن ميلا جوجتانبا kusoo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka. maanta waxaan ka hadlaynaa su'aalaha iyo jawaabaha. su'aalo badan oo la soo weydiiyey ayaan rabnaa inaan dhowr xabo ugu badan soo laalaabtay aanu soo qaadno aan idinka jawaabno. inteynaan su'aalaha gudagelin, fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe saar si aad uu kuu soo gaadho markastoo aan video soo gelino si aad u heshid aanaad uga faa'iidaysatid. siina share gare waa mahadsantihiin. su-aasha koowaad waxa weeye inala soo weydiiyey sidee aan miisaanka iskaga ridi karaa. waxaan ka caawinayaa rug xanuun, markaa sidee aan miisaanka u lumiyaa. okay, miisaanka waxaad u lumin kartaa, waxaad sameynaysaa si aad miisaanka iskaga lumiso. cuntada saddexda waqtiba cuntada waad cunaysaa. ma sameynaysid inaad cuntada iska dhaafto, aad marna cunto marna aad ka tagto. waa inaad waqti walba cuntada cuntaa. waa inaad biyo badan cabtaa. biyo badan inaad cabto waa muhiim tahay. inaad cuntada aad cunayso aad ku darto protein, cunto protein leh aad cunto iyo qudaar fara badan. waxyaaba cagaaran aad cunto iyadana aad muhiim u tahay. waxyaabahaas oo dhan waxay kaa caawinayaan inuu jidhkaagu miisaanka lumiyo. inaanad sigaarka iyo qaadka iyo waxyaabaha drugska aad iska ilaaliso. inaad hurdo fiican seexato. inaad cunto haddaad wax cunto faad duxli aad cunayso. waxaa jirta cuntooyin hadii jeer duxdu waa laba nooc, waa mid faa'iido leh ama waa mid xun iyo mid wanaagsan. marka inaad barato duxda wanaagsan noocee weeye nooca aad u baahantay ee jidhkaagu u baahan yahay. waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad iyo aad ugu muhiimsan waxa weeye waa sokorta. inaad sokorta dhammaanteed iska dhaafto. haddaad shaah cabayso, shaah bilaa sokor leh ama in yar oo sokor uu leeyahay aad ku darsato. maaha sokortan aynu shaah ku darsano oo kale, laakiin xataa cuntooyinka kale ee aad cunto haddaad cunto badan cunto, cuntada waxaa loo bedelayaa sokor baa loo bedelayaa. marka waxaa muhiim ah inaad waxyaabaha sooraha leh, waxyaabaha hadii jeer ayadana la faraar garayo la shiilo kale ee saliidaha badan leh inaad iska dhaafto. iyaduna waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad samayso marna aad soonto marna aanad soomin. tusaale ahaan oo kale sida diinteena noo sheegayso inaad 2 casho soonto, isniinta iyo khamiista oo kale. daraasada caafimaadka ee iminka la sameeyey ku saabsan in qofku marna soomo, dadka hadii sharba inay miisaanka iska lumiyaan ama iska ridaan ama iska yareeyaan, inay waqtina ay soomaan waqtina ay cuntada cunaan. aad iyo aad waxa marka la isbaro dhigo dadkii saa sameeyey iyo dadka aan soonkaa samaynin, waxay aad iyo aad u fiican tahay qofka sooma marna cuntada cunaa. marka haddaad ku samayn karto inaad isniinta iyo khamiista kale aad soomi karto, inta kale cuntada cunto, taasina aad iyo aad bay ka qayb qaadanaysaa jidhkaaga. inaad hurdo fiican kugu filan habeenkii seexato. inaad iska ilaaliso saamileylka iyo dhafarka ama dhafarka ama saamileylka aad iska dhaafto. inaad iska dhaafto oo kale hadii jir ama aad iska ilaaliso jimicsi samayso. waxyaabaha stress kuu kicinayo oo kale, wixii stress kuu kicinaya inaad iska yarayso ama jimicsi aad samayso. waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ka qayb qaadanaya kaa caawinaad inuu jidhkaagu lumiyo miisaanka waxaa ka mid ah inaad calool istaaga iska ilaaliso. wiigiiba ama 2 wiigba hal mar calooshaa socodsiiso. iyaduna waxaa aad iyo aad iyaduna muhiim u ah inaad samayso vitamin B oo kale ama multivitamin oo kale aad isticmaasho. waayo jidhkeena ayaa u baahan vitamino. waxaa laga yaabaa inaad cunto diet inaad gasho kale. marka vitamino aad u fiican yihiin, waliba vitamin B. waxaan kusoo koobayaa 2 qodob oo iyaduna muhiim ah inaad iska dhaafto. haddaad doonayso inaad miisaan lumiso, waa inaad iska dhaaftaa cuntada aad ka cunayso dibadda aad ka cunayso, hudheelada aad ka cunayso. waayo cuntada hudheelku lagu keenayaa waa wax laga yaabaa macaan badan leedahay, inay saliid badan leedahay, laakiin waxaan kula talinayaa inaad adigu aad cuntada aad doonayso karsato. waayo adiga ayaa jidhkaaga og, adiga ayaa jidhkaaga la hadlaya, wuxuu jidhkaagu doonayay waxaad jeceshay adigunba og. waxaana muhiim u ah inaad adigu cuntada samaysato. tan ugu dambaysa waxa weeye wax kasta haddaad samayso waxaa loo baahan yahay jimicsi baa loo baahan yahay. waa inaad exercise ama jimicsi aad samayso. jimicsigaas haddii aad awoodo, haddii aad qof weyn tahay oo kale, da'da xagga weynaanta oo kale, ama qof jimicsi fiican samayn karo oo kale, waxay kugu xidhan tahay marba da'daada inta ay tahay.
haddii jir waxaana muhiima inaad si aana jirkaaga aana isu dhaawicin tusaale ahaan haddaad hore jimicsi u samayn jirin muruqyadaadoo dhan way jilicsan yihiin ama oo lama qabsan waxaa muhiim inaad step by step ahaan oo kale aad u samayso jimicsiga waxaana aad iyo muhiim oo kale baaskeesha haddii jir guryaha la dhigto oo kale taasina aad iyo aad ay muhiim u tahay imkan waxaynu soo gudbinaa su-aalaheennii su-aashii labaad waa cirib xanuun iyaduna su-aashan waxay ku saabsan tahay qofka cabanaya cirib xanuun waxyaabaha sababa cirib xanuunka had iyo jeer cirib xanuunku aad iyo aad bay dadka ugu badan tahay dadka orda ama dhali ama da' dhexe oo kale ama dadka waaweynba cirib xanuunku aad iyo aad bay ugu fara badan tahay waxyaabo fara badanna way sababaan marka kolley kuma soo koobi karano halkan laakiin waxyaabaha lagu garto oo kale waxa weeye waxay ay leedahay xanuun aad iyo aad u fara badan bay leedahay siiba subaxdii ama marka aad nasato ama meel in badan fadhido ama aad nasanayso kale kadib markaad kacdo aad istiraado soco ay xanuun aad iyo aad u badan leedahay marka waxyaaba badan baa cirib xanuunka sababa hadday tahay seedoo kale hadday tahay neerfo oo kale hadday tahay ciribta qaybaha seedaha oo kale ay tahay haddii ay tahay lugtaada aan isu dheelitirnayn oo haddii jeer waxyaabaha la dhaho adinkaagu uu dhinac u jinjeersamo oo kale sidii banjaro oo kale uu dhinac u haysanto waayo waxaa lumaya isku toosnaantii lugta hoose qaybta lugta hoose iyo roogii iyo misigtii waxyaabahaasoo dhan haddii xagga hoose aad lugtaadu ay dhinac u jinjeersato waxaa laga yaaba inaad canqowga ku xanuuno roogii ku xanuuno misigtii ku xanuunto dhabarka ku xanuuno waxyaabahaasoo dhan waxaa laga yaaba inay sababtay qaybta hoose ee adinka marka haddii aad cirib xanuun leedahay waxaa fiican in hore dhakhtar tusto laakiin haddii cirib xanuun ay kugu cusub tahay waxaad samayn kartaa haddii jeer ice baraf oo kale biyaha yarare biyaha cagadaha biyaha kale maaxda oo kale ayaad soo qaadanaysaa waxaad gelinaysaa talaagada qaybta sare ee qaboojisada dhagax baad ka dhigaysa marka dhagax noqoto ayaad soo qaadaysa subaxdii oo kale maalintii 2-3 jeer oo kale waxaad saaraysaa iyadoo baraf aad u ah ayaad dhulka dhigaysaa dabeetana waad ku lugtibaas ugu waxaynaysaa ugu celcelinaysaa barafkaas wuxuu kaa caawinaya inay seedii hoose ee qaybta lugta oo kale ay kaa caawiso hadduu xataa caabuq jiray iyo barar iyo waxaas jiray waa kaa caawinaysaa ta labaad aad samayn kartaa waxa weeye tuwaaliir baad soo qaadaysaa lugtaadii qaybta hore faraha ah ayaad saa usoo suuraysaa dabeetana si aad u kala bixiso adinkii qaybta hoose si aad u kala bixiso taana waad samayn kartaa ama waxaad samayn kartaa oo kale joogitaan ama masaaj oo kale aad u samayn kartaa qaybta ku xanuunaysa haddaba inta waxyaaba marmarisid oo kale ayaad masaaj ku samayn kartaa waxyaabaha kale aad samayn karto waxaa ka mid ah had iyo jeer inaad u fiirsato kabahaaga inaad kabaha bedesho aad bay muhiim u tahay haddii aad kaba yaro dheer aad xidhatid oo ay cirib xanuun ku yimaado kabaha bedel kaba degan qaado haddii aad had iyo jeer kaba degan qaadan jirtay oo aad cirib xanuun yeelatay waad tijaabin kartaa inaad kaba yaro dheerle aad qaadato waayo waxaa laga yaabaa angalka ama xagashaas aad bedesho aad sidii berigii hore aad isticmaalaysa aad bedesho inay kaa caawisan oo aad bay ugu dhowdahay waxaad kaloo samayn kartaa miisaankana waad iska yareyn kartaa su-aasha saddexaad oo ah maxay farahaygu u sanqadhaan faraha hadday jeer dadku markay isku laalaabaan oo kale sanqadhaasi maxay tahay horta sanqadhaa faraha la sanqadhayaa wax laga warwaro maaha maxaa yeelay sanqadhaasi waxay ka timaadaa markaad isku cadaadiso laabatadii yaradee faraha ah haddii jeer gaas qayb nitrogen gaasa ayay markaad isku waxayso ayay qacdaas waxay ka timaadaa gaastaas soo boodaysa ee gudaha laabatada ayaa had iyo jeer ay ka timaadaa marka had iyo jeer wax laga warwaro maba aha sanqadha faraha ah oo wax iska okeeya iska caadi ah weeye su-aasha afraad iyaduna ah sidee ayaan u ilaalin karaa caafimaadka lafaha inay lafahaygu caafimaad qabaan sidee aan waxyaabaha aan ku ilaalin karaa maxaa ka mid a waxyaaba fara badan ayaad samayn kartaa si aad u hesho ay lafahaagu caafimaad qabaan waxyaabaha aad si aad lafa caafimaad qabto u hesho waxaad samayn kartaa cunto qudaar badan baad cunaysaa waxyaabaha greenka ah waxaad samayn kartaa kale cunto protein waad isticmaali kartaa jimicsina waad samaynaysaa waxaa kaloo muhiima inaad qaadato vitamin D ama vitamiinka cadceedda supplement ahaan oo kale inaad u qaadato isku aad iyo aad muhiim u yahay wuxuu kaa caawinayaa caafimaadka lafahaaga ayuu kaa caawinayaa iyo inaad ilaaliso miisaankaaga oo aad ku ilaaliso miisaankaaga dhexdhexaad ahaan ku ilaaliso aanad noqon qof bacbaca ama qof aada u dhuuban aanad noqonna aad iyo aad bay muhiim u tahay su-aasha shanaad su-aasha ku xigtaana waxa weeye
waxaan qorsheynayaa inaan aroos galo, exercise noocee ah iyo diet ama cunto noocee ah ayaad igula talin lahayd? Wow, waxa weeye qof aroos galaya, marka kulli waxa fiican inuu mala aroos u diyaar garoobaya si miisaankiisa u lumiyo, mala inuu personal trainer qof gooni qabsado ama si sabab uu jimicsi u sameeyo. Laakiin wixii aan anigu ay la tahay aan kusoo gudbinayaa, saxna waa noqon kartaa, qalna waa noqon kartaa, waayo kuma takhaqusin takhaquskayga maaha sida miisaanka waqti yar qofku rido. Laakiin waxaan kugula talin lahaa inaad sameyso hadii jeer jimicsiga high intensity ama HIIT waad ku qoro internet ku qoro, Google ka ku qori kartaa. Jimicsi la sameeyo oo ah high intensity ga ah, waayo waxaad markiiba si yar fudud markaad jimicsi aad fara badato waxa ka dhacaya baruur fara badan ee gubaysaa, jirka uu gubaya. waxaa kaloo sameyn kartaa squats hada jeer ka fadhiisiga jimicsi ka fadhiisiga oo kalena waa sameyn kartaa, iyo baaskiisha ama hada jeer guryaha la dhigto kalena aad iyo aad bay kaaga caawinaysaa in muruqyadaada iyo inaad baruur badanba gubto. Su'aasha lixaadna waxa weeye ciyaartooy ayaan ahay, markaa waxa ay gooday seeda hore ee ruuga, maxaad igula talin lahayd? Qalin ayaa la igula taliyay buu yiri, dhakhtar baan tusay, markaa qalin bay igula taliyay, maxaad igula talin lahayd? Had iyo jeer seeda hore ee ruuga ama xijiyaha hore ACL marka had iyo jeer waxa weeye dadka ciyaartooyda ah aad iyo aad bay ugu badan tahay inay seedaasi go'do. Marka waxaan kugula talin lahaa inaad dhakhtarkaaga aaminto, aad talada uu siiyay aad qaadato si haddaad doonayso kuwaad kusoo noqoto ciyaaraha iyo balooniga. Waxaa muhiim ah inaad seedaada dib la iskugu xidho ilaa 6 bilood ilaa 9 bilood kadibna qofku wuxuu kusoo noqon karaa balooniga iyo ciyaartooydii baad kusoo noqon kartaa, caadi baad u ciyaari kartaa. waxaana muhiim ah inaad, waayo haddii aan la isku xidhin seedaas waxaa laga yaabaa isku toosnaantii lafaha qayb sare iyo qaybta hoose ama ay dhinac u kala waxaysanto mustaqbalka waxaa kugu dhici kara arthritis baa kugu soo degdegi kara. marka aad iyo aad waxaa muhiim u ah inaad dhakhtarka taladiisa qaadato. Su'aasha ugu dambeysana waxa weeye waxaa la igula taliyay ruug kala bedel ama laabto kala bedel, maxaan ku ogaan karaa inaan u baahanahay ruug kala bedel? maxaad igula talin lahayd? Had iyo jeer waxyaabaha ugu badan ee sababa inaad u baahato laabto kala bedel ama ruug kala bedelka waxa weeye arthritis oo ah stage ugu dambeeya, xaalado soo marmaraa, laakiin marka ugu dambeeya qaybta ugu dambeeya uu marayo dooqa iyo ama go'aankana adiga ayaa iska leh. laakiin haddii uu xanuun badan kugu hayo iyo lugtii oo aan kuu shaqaynaynin oo naaf ahaan oo kale ah, waxa dee ku habboon inaad sida dhakhtarku kula taliyay aad samayso. waayo marka casrigan lagu jiro wax teknolojiyadii wax kasta wuu soo horumaraysaa, intaa wax cusub la soo saaraa si wixii hore wax looga bedelo oo mid fiican loo sameeyo. marka waxaa muhiim ah inaad dhakhtarkaaga taladiisa qaadato. haddii aad waxaad sameyn kartaa oo kale inaad second opinion inaad dhakhtar kale u tagto oo isagana la tashato haddaad dhakhtarka hore aad aamini weyday. laakiin mar walba waxa muhiim ah dhakhtarkaaga aaminto ayaa aad iyo aad muhiim u ah. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal, haddaad barnaamijkan ku cusub tahay, channel ku cusub tahay, fadlan subscribe garee si markastoo aan video soo gelino oo kuu soo gaaro aad uga faa'iidaysato, siina share garee. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. maalin wanaagsan.